بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka barnaamijka aan idinku haynana waxa kamid ah Iran ayaa mar kale caawa gantaalo ku garaacday gudaha Israa'iil iyadoo wareegii saddexaad ee gantaaladu ay imika socdaan waxaana soo baxay warar kala duwan oo la xiriira qasaaraha ka dhashay weeraradan iyadoo lagu soo waramayo in dad ay wax ku noqdeen isla markaasna la beegsaday xarumo istiraatiiji ah Iran waxay wacd ku martay inay sii wadi doonto duqeymahan iyo weeraradan ilaa iyo inta Israa'iil ay wado sida hadalka loo yiri gardarrada madaxweynaha waddanka Iran ayaa isaguna ku dhaliilay wadamada reer galbeedka inay ku taageerayaan Israa'iil gardarrada ka dhanka ah dalkiisa isagoo sheegaya taas inay dhalin karto xaalad gobolka mid uga sii dari karta marka Gaza waxaa laga soo sheegayaa howlgallo ay fuliyeen xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta oo ay la beegsadeen ciidamada Israa'iil iyadoo Israa'iilna ay sii wado duqeynta dadka shacabka ee Falastiiniyiinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn uga soo horjeestay hadal ay jeedisay mid ka mid ah mas'uuliyiinta dhanka amniga ee waddankaasi taas oo ku aadanayd arrimaha nuclear-ka ee Iran xaaladda gobolka ayaa laga cabsi qabaa in ay isbedel weyn ku yimaado Ruushka iyo Shiinuhuna waxay siyaabo kala duwan uga hadleen dagaalkan u dhaxeeya Iran iyo Israa'iil oo laga cabsi qabo gobolka inuu ku faafo saameynta dagaalkaasi ayaa gudaha Israa'iil aad loogu dareemayaa waxaana soo baxay warar sheegaya in la beekhaaminayo shidaalka kadib markii la duqeeyay shirkadda ugu weyn ee shidaalka ee Israa'iil iyo xarumaha shidaalka lagu sifeeyo dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warar ee degdeg ah ee soo kordhaya falaqaynta ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa maxamed cadee wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed inoogu bilow qodobada wararka ugu waaweyn madaxweynaha waddanka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegaya in la sii wado dambiyada ay geysanayso Israa'iil oo ay ku taageereen reer galbeedka waxay horseedi doontaa xasilooni darrada iyo ammaan xumada gobolka bariga dhexe inay sii baahdo dhinaca kale wakaaladda wararka ee Faris ee Iran laga leeyahay ayaa soo xiganaysa ilo sheegaya in Iran ay diyaarisay qorshayaal ay ku maareynayso goobo xasaasi ah haddii ay dhacaan in taliyayaasha la khaarijiyo qorshayaashan ayaa la hubsanaya in lagu xaqiiqsado markay ugu yaraato in 10 isbedel lagu samayn karo goobahaasi xasaasiga si loo xaqiiqsado in aanan la carqaladayn nidaamka hadda socda dhanka kale wasiirka Israa'iil ee arrimaha dibadda Gideon Saar ayaa sheegaya in xukuumadda Iran in la bedelo una ahayn hadafka Israa'iil hase ahaatee ay noqon doonto wax ka dhasha howlgallada ay wadaan go'aanka lagu weerarayay Iran ayaa ah mid taariikhi ah waa sidoo hadalku dhigay waxaana ogsoonahay in weeraradeena ay waxyeello weyn geysan doonaan waxaana isku dayaynaa hidda ayaamahan inaan ayaamo dhib badan inay dadka Israa'iil ku jiraan hase ahaatee Israa'iil waxa ay taageerayaan howlgallada ka dhanka Iran ciidanka Israa'iil ayaa sheegaya in gantaalo laga soo riday Iran lagu soo riday Israa'iil in nidaamka difaacyada ka hortaga khatartaasi ay shaqeynayaan waxaana waajib ah in dadku ay galaan marka ay helaan fariimaha digniinta ah in ay galaan goobaha loogu talagalay inta ay helayaan fariin kale oo loogu sheegayo inay ka soo baxaan dadka muwaadiniinta ambulance-ka Israa'iil ayaa ku waramaya 4 qof inay ku dhaawacmeen weeraradii ugu dambeeyay ee gantaalada Iran laga soo riday ayagoo ku sii socda goobaha loogu talagalay in bambooyinka laga galo bogga afka Hebrew-ga lagu qoray Israa'iil iyada Calcalist ayaa daboolka ka qaaday in shirkadda Sanol la yiraahdo ee ah shirkadda ugu weyn ee xagga shidaalka ee Israa'iil inay ku dhawaaqday inay aad u yareynayso shidaalkii ay dadweynaha ka iibin jirtay sabab la xiriira in waxyeello soo gaartay goobihii lagu sifeynayay saliidda ee Haifa oo ay waxyeeleen gantaalada ka yimid Iran waa gartay waayahay maxamed haddaynu kusii soconno wararka waxaa moodaa in dhanka Iran laftigeeda laga soo sheegayo howlgallo Israa'iil halkaas ay ka wado iyo weeraro maxaynu ka ognahay arrinkaasi dhanka Iran maxaa laga sheegayaa
wakaaladda wararka ee faris la yirahdo dalka iiraan laga leeyahay ayaa ku waramaysa in nidaamka difaaca cirka ee nabaham la yiraahdo in la howlgeliyey si looga hortago bartilmaameedyada kusoo xadgudbaya hawada wadanka iiraan halka maahir wakaaladda wararka la yiraahdo ay sheegayso in qaraxyo laga maqlay waqooyiga iyo bariga isfahaan waxaana shaqaynaya baa leeyahay nidaamka difaaca cirka oo ka hortagaya diyaaradahaasi ama waxaasi kusoo xadgudbay hawadooda. waa gartay waayahay xagga kale aynu ka eegno Trump waxaa leeyahay hadallo kala duwan ayuu jeedinayaa oo iska soo horjeeda oo ku aadan xaaladan gaar ahaan arrimaha Iiraan dabcan waynu ka warqabnaa inaan dhig jalaq loo siin hanjabaadiisii xalay uu soo bandhigo saaka dadkan u soo gudbinay ee ahayd dadku inay iskaga baxaan magaalada Tehran hadalkan ay jeedisay haweeneyda ka tirsan golaha amniga qaranka ee Mareykanka ee uu dafirayo muxuu yahay maxamed inoo faahfaahin. Trump ayaa ku gacan seeray macluumaadka ay soo gudbiyeen ciidanka sirta ee wadanka Mareykanka ee la xiriira Iiraan inayna dhisanaynin hub nuclear ah markii la weydiiyey qiimeynta ciidamada sirta haweeneyda madaxda waa Tulsi Gabbard ee la xiriira in Iiraan ayna hub nuclear dhisanayn ayaa madaxweynaha Mareykanku waxa uu ku jawaabay wax iga gala ma jiraan waxa ay sheegtay waxayna ila tahay inay Iiraan ku dhowdahay inay hub nuclear samaysato ayuu madaxweynaha ku andacooday bishii Maaj gabadhan madaxda u ahaa ciidamada sirta ayaa guddiga arrimaha sirta u qaabilsan Congress-ka ay wareysteen waxayna qiimeynteeda ku sheegtay in Iiraan ay hub nuclear dhisanayn. waa gartay dhanka waxaa war ka soo yeeray maanta Ruushka arrinkaasi oo dhanka diblomaasiyadda la xiriira bal inoo faahfaahay warkaas Maxamed. afhayeenka aqalka looga taliyo wadanka Ruushka Dmitry Peskov ayaa sheegay Ruushka inuu diyaar u yahay inuu door dhexdhexaadina qaato colaadda u dhaxaysa Iiraan iyo Israa'iil oo labadoodaba ay xiriir wanaagsan leeyihiin. Saacadii madaxweyne Putin ayaa sheegay in Ruushka ay diyaar u yihiin in ay adeeg dhexdhexaadina qabtaan haddii ay muhiim noqoto. Peskov ayaa sheegay mar uu la hadlayay suxufiyiinta hadda xaaladda la taagan yahay uu yiri waxaad moodaa buu yiri inay Israa'iil ka cagajiidayso in dhexdhexaadinta Ruushka ay meel marto waxaadna moodaa buu yiri in arrintan nabad lagu soo dabaalo ay u baahan tahay labada dhinacba inay ogolaadaan. waa gartay warkaas war ka duwan ayaa Maxamed waxa uu ka soo yeerayaa dhanka Shiinaha maxay Shiinuhu sheegeen colaadan. warbaahinta wadanka Shiinaha ayaa soo gudbisay war uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ka sheegay wadanka Kazakhstan mar uu kulan la lahaa dhigiisa wadankaasi Shavkat Mirziyoyev waxaana uu sheegay in Israa'iil ay weerar ku qaado wadanka Iiraan in ay tahay mid dardar gelinaysa xiisadda gobolka bariga dhexe. madaxweynaha wadanka Shiinaha ayaa waxa uu yiri waxay tahay wax walwal leh sida ay soo gudbisay wakaaladda wararka ee wadanka Shiinaha. madaxweynaha Shiinaha ayaa wuxuu yiri waxaan ka soo horjeednaa fal kasta oo xadgudub ku sameynaya madax banaanida dal kale ammaanka dal kale iyo wadanka kale sharaftiisa iyo wadamada caalamka. waa gartay waa hagaag wararka kale waxaa ka mid ah Maxamed hay'adda atomikada ee caalamiga ah warkan ay ka soo saartay xarumaha nuclearka ee Iiraan muxuu yahay. hay'adda faafreebta ama xakamaysa nuclearka magaceeda marka la soo gaabi la yiraahdo IAEA ayaa waxay ku dhawaaqday in dhaawicii gaaray warshadda Natanz ku taala ee taageerinta nuclearka in si toos ah uu saameyn ugu yeeshay duqeyntii Israa'iil waxaana muuqata in macnaheedu uu yahay in ay waxyeello gaareen qalab muhiim ah oo meeshaas yaalay. waa gartay waa yahay xagga Gaza aynu eegno Maxamed markan inkastoo warar ay soo dhacayaan aan u soo laaban doono iyo falaqaynta Gaza maxaa ka socda maalmihii ugu dambeeyay waxaanu arkaynaa
xogaga iska caabinta Falastiiniinta inay dardar geliyaan howlgallada military. ururka Xamaas ayaa sheegay in laba howlgal oo ay koonfurta marinka Gaza ka meel mariyeen in ay wax ku yeeleen ciidamo Israa'iiliyiin ah. dhanka Israa'iil ayaa aqbashay in hal askari laga dilay qaar kalena laga dhaawacay. Israa'iil Qudus iyo waxaa wada shaqeeyey ururka Xamaas waxa ayna weerar ku qaadeen taangiyo ama baabuurta qaada dareeraha, waxaana ay ku weerareen deegaanka Abasan oo ku taala bariga Khan Yunis, halkaas oo la sheegayo dhaawac iyo dhimasho inay jirto. waayahay maxamed waa mahadsan tahay. daawadayaal waxaan u gudbaynaa haatan falaqaynta wararka iyo wixii warar ee degdeg ah ee soo kordha, laakiin aynu kala daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. hagaag maxamed, falaqaynta aan ku bilowno. Israa'iil waxaa leeyahay waxaa aad uga go'an in ay dadka Iiraaniyiinta ku kiciso hoggaanka sare, isla markaasna ay abuurayso dacaayado iyo warar iska soo horjeeda. arrimahaasi khubarada maxay ka tiri? inta aanan ka hadlin khabiir waddanka Iiraan u dhashay waxa uu ka yiri arrimahani ayaan marka hore waxaan rabaa daawadayaasha HBN inaan u sheego barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan kusoo bandhigi doonaa dagaalkan Israa'iil ay dhowaan ku qaaday Iiraan inuuna ahayn wax xalay dhalay ah oo laga soo minguuriyey cilmi baaris la sameeyey 2009 cilmi baaristaas oo ay ka qayb qaadatay maxadka la yiraahdo Brookings ayaan isku dayeynaa inaan daawadayaasha usoo gudbino la xiriira Israa'iil inay muddo dheer iyo Mareykanka ka wada shaqeynayeen in Iiraan la weeraro. haddii aan usoo jeesto su-aashaadii oo ah khabiirkan waxa uu ka yiri in ay Israa'iil damacsan tahay in ay xukuumadda Iiraan shacabkeeda ku dirto, ayaa waxa uu ka sheegay ninkan oo cilmi baaro weyn ah kana tirsan maxadka daraasaadka istiraatiijiyadda ee bariga dhexe lafa gurana arrimaha gobolka, ayaa waxa uu sheegayaa weerarada ay Israa'iil qaadayso ayaa bartilmaameedkeedu una ahayn oo keliya tayagelinta nukliyeerka iyo barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan, duqeynta isbitaalada ay u geysteen iyo deegaanada ay dadku degan yihiin ayaa waxay u muuqataa in ay midaysay shacabka waddanka Iiraan. meeshii ay la rabay dad shacabku inay ku kacaan dowladda cagsigeeda ayaa dhab ayuu leeyahay, waxay u muuqataa buu leeyahay Israa'iil waxa ay dhab ahaan wado oo ay ahay inay abuurto cabsi, inay ka dhex abuurto shacabka Iiraan iyo in ay ku kacaan xukuumaddooda. taa beddelkeeda waxaa abuurmay dadkii inay xukuumadda aad u taageeraan kana caraysan yihiin falalka guracan ee la qaadayo, ayuu yiri Aslani. waxaa kale uu sheegayaa marka dhab ahaanta la fiiriyo ilaa hadda waxaan arkayna waxa weeye in shacabka Iiraan ay xukuumadda iyo calanka taageerayaan kana go'an tahay in tallaabo xoog leh laga qaado Israa'iil. Sani ayaa waxa uu sheegayaa Iiraan ayaa muddo dheer cadaadis saarnaa oo ay ku jirto cunaqabatayn iyo dil siyaasadeed oo ka dhanaa saynisyahanada iyo madaxda dowladda oo ay ku jiraan militariga. intaas oo dhan way dul qaadanaysay, hadda waxaad moodaa inay dhalisay in hadda lagu riixayo in ay ka tagto barnaamijkeeda nukliyeerka. waxa uu leeyahay marka la fiiriyo waxaasoo dhan Iiraan waxa ka socda waxa weeye buu leeyahay in mustaqbalka laga hortegayo colaad aad u weyn, shacabkuna waa aad u taageerayaan tallaabada ay qaado xukuumadda Iiraan. waa gartay. waan ku soconaynaa falaqaynta. aan eegno war hadda soo dhacay oo degdeg ah. ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka oo xaaladdan ka hadlayay ayaa waxa uu yiri Iiraan haddii aysan ka tanaasulin nuclearka waxaa markaas miiska saaran sidii lagu burburin lahaa. Israa'iil keligeed ma burburin karto nuclearka Iiraan, ayuu yiri Friedrich Merz. hadalkan maxaa loo fasirin karaa Maxamed? midda ugu horeysa waxa weeye hawshan muddo dheer ayay socotay sida aan ku ogaanay cilmi baaris wadamada reer galbeedka oo Mareykanka uu taageerayo iyo Israa'iil muddo dheer ayay barnaamijkan ka shaqeynayeen. waxyaabaha la rabo waa ka fog yihiin barnaamijka nukliyeerka Iiraan. khabiiro badan ayaa ka hadlay, barnaamijyadii hore ayaan ku gudbinay. tan kale waddanka Jarmalka marka la barbar dhigo dadka hadlaya waa waddanka ugu naxuusan oo Iiraan ay wax ka dhageysanayso.
iiraan tilaabadan lagu qaaday shacabkeeda iyo ayada waa kasoo horjeedaan umana badna in ay maqlayso ama lagu qasbi karo in ay nuclearkeeda xoog lagu burburiyo xooggiina dagaalka haddeer ayuu socdaa waana arkaynaa inuu maraykan kusoo biiray in kale waad arkaysaa waxyaabaha socda inay kulligood tilmaamayaan in loo bisoonayo in maraykanku uu dagaal kusoo biiro laga soo bilaabo Costas Belli oo aan shalay sharaxnay oo aan marmarsiya muska ii galay safiirkii maraykanka ee joogay Israa'iil inuu ku andacooday in ay waxyeello gaarsiisay safaaradda ruushka safaaradda uu maraykanku ku leeyahay Israa'iil Iiraan inay wax gaarsiisay haddana waxaa soo kordhaya marba mar ka dambeysa madaxweynahan hadaladiisa islaaf dhaafayaan inuu ku hanjabayo in tilaabo la qaadayo waxaana muuqata in Jarmalka uu ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyay ee madaxweynaha la kulmay wararka ka soo baxaya in waxa weeye siyaasad hadda hal dhinac ujeeda wadamada reer galbeedka waxaad moodaa in hadda ay isku dhinac yihiin laakiin Iiraan wax kasta oo dhaca waxa la maagayo oo loo dan leeyahay waxa weeye awoodan khatarta iyo teknolojiyada la soo baxday hubka gantaalada guuxooda ka dheereeya iyo diyaaradaha droniska casriga ah intaba ma haystaan wadamada reer galbeedka marka waxa weeye Iiraan hadday xeradeena ka baxdo waxa weeye wax noo harta ma jiro weeye Iiraanna waxay noqonaysaa meeshii ay ka bilaabanaysay dhab ahaantii hoos u dhaca sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan galgalkii uu maraykanku ku lahaa caalamka intiisa kale waa tahay su'aal waxaan ku weydiin doonaa ku saabsan haddii waxyeelo ay gaarto xarumaha nuclearka waxa ka dhalan kara laakiin dhowr war oo degdega aan raaciyo warbaahinta Iiraan ayaa waxay soo tabinaysaa qaar ka mid ah gobolada wadanka in internetka cilad ay ku timid lama sheegin arrintaasi sidoo kale telefishinka kana 12 Israa'iil laga leeyahay wuxuu sheegayaa in ilaa iyo hadda Iiraan 400 oo gantaal ay ku soo riday Israa'iil tani markii dagaalku uu bilowday 17 mawjidood oo weerar ay Iiraan soo qaaday baa leeyahay dhinaca kale warbaahinta Israa'iil waxay kaloo sheegaysaa kana soo xiganaysaa laamaha sirdoonka Israa'iil in siyaasiyiinta Israa'iil ay joojiyaan baaqiyadooda ay ku dalbanayaan maraykanku inuu dagaalka soo farageliyo ama uu soo galo waxay leeyihiin taas waxay muujin doontaa ama loo fasiranayaa inaan ciidankeenu is awood lahayn in dagaalkan kaligood ay ku sii jiraan marka warkaas hala joojiyay ayaa la leeyahay saraakiisha ayaa waxay leeyihiin siyaasiyiinta in warkaas ay joojiyaan dabcan warkan wuxuu la xiriiraa hadaladii ugu dambeeyay wasiirada mayalka adag iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Israa'iil ay leeyihiin maraykanku dagaalkan ha soo galo oo loo fasirtay nabadbaadihi maraykan mawlid aan ku daro wararkaas ka soo baxaya dowladda Israa'iil ee ay ugu digayso madaxdeeda in aynan maraykanka arrimihiisa ka hadlan waxa weeye waxa dhibsaday Trump iyo kooxaha la socda sababtoo ah diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaan maraykanka iyo Iiraan way is ogyihiin Israa'iil iyo maraykanka iyo Iiraan way is ogyihiin waxa muuqata hadda dadka loo beenguuriyay waxa weeye dadka kale ma aha way is ogyihiin labadan dhinac waxaana muuqata Israa'iil in aynan xaaladan ku sii jiri karin Douglas McGregor waraysi uu maanta bixiyay waxa uu ku sheegay Israa'iil weerar kasta ay qaado waxyeelada ay geysanayso marka laga reebo weerarkii ugu horeeyay ee lagu dilay madaxdii militariga iyo saynisyahanada lagu dilay wixii ka dambeeyay weerarada ay Israa'iil qaadayso inta badan saameyn weyn ma laha laakiin weerarada ay Iiraan qaadayso inta badan saameyn weyn ayay leeyihiin burbur weyn ayay u geysanayaan kaabayaasha ay ka mid yihiin xafiisyada dowladda qalabka militariga warshadaha wax soo saarka airportka dekadaha iyo sidoo kale saldhigyada ciidamada sirta ciidamada militariga wasaaradda gaashaandhigga iyo meel allaale iyo meeshii xasaasi ah haddii ay ku socoto rogaal celinta Iiraan ay celinayso burburka ay geysanayso ee joogtada ah waxaana lagama horaan noqonaynin in Israa'iil ay dagaalka luminayso mana aha mid waqti dheer qaadan doonta ayuu leeyahay Israa'iil ayadoonan ka fikirin ayay waxay qaaday buu leeyahay dagaal ay isku mu'aamaradeynayso ayada laftirkeeda waxaana muuqata warkan hadda soo baxaya aad arkaysid daciifnimadeeda ayaa banaanka taala cid kasta og waxa ay moodaysa inay sameyn karto waxay islahayd hadaa madaxda
ciidanka hogaaminaya aad layso oo aad wax wareeriso haddana waxay ku hanjabayaan dagaal weyn inay weerar weyn qaadi doonaan ayay maanta ku hanjabayaan wax kasta ay geystaan iiraan waxaad moodaa inay ka gaashaamatay falkii gaadmada ahaa inay kasoo gabatay in ay maareynayso dadkii gudaha iiraan ka shaqaynaya canaasiirta ahaa darba kastoo iiraan xaggeeda ka timaadana waxaad moodaa inay culayskeeda leedahay sida hadalka loo dhigayo waa gartay walaac weyn wuxuu ka jiraa arrimaha ku aadan weerar haddii uu ku dhaco xarumaha nuclearka qobrada maxay ka tiri maxamed arrinkaasi iyo waxa ka dhalan kara arrintaasi ayaa waxaa ka hadlaya nin khabiir ah oo la yiraahdo John Saropoulos wuxuuna leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu go'aanka uu ku qaatay inuu weeraro goobaha lagu tayigeliyo nuclearka Iiraan waxay horseeday walwal ka timid beesha caalamka iyo dadka kormeera ama aqoonta durugsan u leh arrimaha atomikada iyo khabiirada og khatarta ay yeelan karto nuclearka Rafael Grossi oo ah madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan faafreebka nuclearka ama xakamaynta nuclearka ayaa waxa uu sheegay inay suuragal tahay in ay shucaac iyo chemicals kale in ay ka soo baxdo ama ay ka fakato warshada Natanz la yiraahdo Iiraan ku taala kamid ah meelaha ugu muhiimsan ee nuclearka lagu taligeliyay Iiraan ay duqeyso Israa'iil Iiraan in ay duqeyso goobahaas waxay tilmaamayaan khatarta ka dhalan karta in ay shucaacani fakado waxaa kaloo ayadana jira laba dal oo daris ah oo haysta hub nuclear ah India iyo Pakistan oo ayaga lafirkooda dhawaan bishii May uu dagaal dhex maray waxaa kaloo jira Ruushka iyo Ukraine oo ayagana dagaalkooda uu 3 sano iyo dheeraad jiitamay oo barta ama warshada nuclearka ugu weyn ee korontada dhalisay ee Zaporizhzhia ayagana laga yaabo inay wax noqoto waxaasoo dhan ayuu wuxuu su'aal ka keenayaa in amniga agabka nuclearka ee caalamka in baryahan dambe uu aad u xumaaday khatar weyn keeni karo iyo saameyn weyn waayahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashana ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii daawade waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn hadda kusoo biir waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka nabadgelyo